soo dhawaada asxaabta qaaliga xilli wanaagsan meel walba dunida ka joogtaan haddaad dalka joogtaan iyo haddaad dibaddiisa joogtaanba arrin yar baa iga yaabiyo copyright baa heesii oo dhan la iskaga xirtay waa qofkii lahaa ma caddaan baa ku xidhanaya ma ciddii lahayd baa ku xidhan haddaad kaman yar muusig yar wax yar isticmaasho dhab waaba lagu dhagayaa muuqaalkaaga copyright claim baa lagu soo qorayaa waxaan u gartay dad aan Soomaali ahayn baaba waxooyni oo dhanba copyright ku xidhay waan arkay heeso ama muusig Soomaalidu leedahay oo dad caddaan copyright iskaga xiranayaan qaybna way jirtaa dadkii lahaa ama dad edit gareeyay horta heeso badan ama waxaad arkaysaa arrimo badan oo dadkii lahaa bari hore geeriyoodeenba waadana copyright ku xiran tahay talooyaa ku xirtay waa tan ka yaabo marka muuqaalkan waa markii labaad oo aan edit gareeyo hagaajiyo ma garanaysaa marka hawl yar baaba iga soo baxday markii hore copyright baa meel walba la iskaga xirtay way wanaagsan yihiin laakiin dee waxaan ugu daranba ciidan copyright ku xiranaysa ciddii lahayd ba inaysan ahaynba balaayo kale inaga dhex shaqaysanaysa galabta ayaan magaalada soo baxay caasimadii Puntland indheeyay maalin maanta ka dambaysa quruxdeedii iyo dhalaalkii iyo nuurkii waa sii kordhaysa magaalo walba toonbaleenkeeda bilowgeeda hore la soxo ama dib laga soxo sidaas oo qurux badnaata hayweeyada iyo wadooyinka halkii la dhigaba way ku soo baxaan sababtaa waa wado diyaarsaneed wado loo diyaariyay wado halkay galaysay halkay ka bilaabmaysa la garanay bajaajtu magaalada ku sii badanaysa laakiin laga maarmi maayo danyarta dadkoo dhan ba hiil u tahay $1 ba 3 jeer 4 jeer lagu raacay halka markii kale u gaariga u shidaal kugu wareerinayo dad doonto gurigaaga soo dhex dhiganayso marmarna aad kala soo baxayso bajaajtu waa laga maarmaan dhalinyaro badan ba ka shaqaysata gobolada dalka oo dhan meel walba ka timaada amniga magaalada iyo horumarka hoteelada maalin walba meel waxa ku soo kordhaya waxyaabaha inagu yar waxa weeye waa beerihii goobihii lagu nasanayay magaalada barnaamijka marka looga baxo halka ciyaarka lagu ciyaarsiiyo dadka waaweyn rag iyo dumar ba iskugu yimaadaan dareentii aad bay u badantay wadarta geeti markii ba dabada magaalada loo qabtay maasha Allah bilicdu kordhinaya argooyinka way inagu yar yihiin qofku markuu dalka ku soo dalxiiso ama caasimadda yimaado waxyaabaha qalbigiisa ka go'ay waxa weeye argada ama astaamooyinka taariikhda inuu leenahay hadda barxadii hore waxa lagu bedelay argadii hore waxa lagu bedelay foox unsiga maalinta khamiista jimcaha ku ridan doono qiiqu magaalada qabsan doono foox iyo meedii maxaa dhul udug caasimadda maxaa dhul udug loogu bixiyay caasimadda dhul udug waxay ku noqonaysaa foox iyo meediga in lagu rido khamiista jimcaha halkaas inuu gargarihii fooxi saaran waa lagu ridayaa salligana nabigana wal raacin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa caasimadii oo nuurkeedu si qabsaday fooxina xagga sare la saaray halka caddayn ay hadda u tahay caasimadii dhulada waka marka sida loo dhamaystiro jimca iyo khamiis walba galab walba habeen walba oo khamiis iyo jimca soo galaysa halkaas salliga nabiga wardiga laga haynaya ma sha Allah ilaahu noo siyaadi haddaad isleedahay magaalada bajaajtu baa ka shaqaysa taksiyo waa ka shaqeeyaan taksiga dhaweeye la yiraahdo dadkeena qurbaha ku nool ama dalka dibaddiisa jooga ama meel magaalada waxay u yaqaanaan wixii balaagabkii ama uberkii la oran jiray ayaa dalka kaga shaqeeya qofkii magaalada ku cusub ama yimaada waxaanu xasuusinaynaa hadduu xaafadiisa joogo uu leeyahay magaalada meel ka baxsan baan deganahay wax bajaaj agteeda ma marayso wadadu yar bay jirtaa xilli dambaan soconayaa amnigeygana dandoon u yara baqay inkastoo amnigu 100% yahay laakiin kalsoonidaadu hadda doonaysa gaari aad ku kalsoontay 100% dhalinyaro nadiif ah wadato wixii aad ku dhex ilaawdo lagu soo wacayo xafiiska lagu geenayo dhaweeye nambarka gaaban 330 baad garaacaysa haddaad airportka joogto 330 halka joogtaba oo kugu imaanaya saacad walba xilli kasta intaasina horumarka magaalada ka jira in la sheego iyadoon cidna noo dirsan waxaan kaloo ku dareynaa dawladda hoose maayarka magaalada waxaan laga codsanayaa aan ka codsanaa si gaar ah inuu argooyinka ama goobaha taariikhda la badiyo si ay dadka dalxiisayaasha magaalada imaanaya xusuus gaar ah ugu reebto
qofkan cameramanka ama photographerka ama maartay markaad blogger ama vlogger sameynayo magaalada yimaada garowe maxaa ku xasuustaa marka la yiraahdo dabaqyo dhaadheer wadooyin waaweyn amniga maxaa ku dheer astaamo ama goobo taariikheed oo lagu xusay taariikhda hore halgamayaashii calaamadaha dhaqanka sida geeli awr geel meel la saaro kala taalo loo dhiso harugaalkii dhaqankeena riyihii urgidii wixii hadan doona dib baan soo nasacba marka waa muhiim sportskii kubadda cagta waxyaabahaas oo calaamado waa looga dhigi karaa waxyaabaha ay maartay lagu xasuusto magaalooyinka dadka soo booqanaya ama sawir qaadayaashu ay aad u xiiseeyaan inta markii uu kaga soo gudbin amnigii iyo horumarkii hore u socda guliga gobanimo ganacsigu waa kala socda ku soo dhawaadayaan leena caasimadda Dhuldhub hoteelada 5 star kioniga furan qofku markuu sida airportka uga soo dego muuqaaladii hore dad dib u daawataan Cawaale Blue Hotel baan nigu diyaar airportka markaas uga soo degto horaad ka wici kartaa nambaradii wixii dhoon ku qorayeen hoteelo badan oo 5 star magaalada ku yaal ku soo dhaw caasimadda marka la muuqaal kale oo aynu ku indhaynayno ama exploring ku sameeyno magaalada gudaheeda waa Garowe iyo marka kale ku soo dhawaada iyo Faras Media oo leh waxyaabo badan ba magaalada iska bedelay maalaha dadka maqnaanta maal labaadka wax cusub baad ku arkaysaa hadda inagu cusub oo istaba socdo oo tii ugu horeysay inuu aragnay waa girgirihii ama fooxii ama sida loogu riday Dhuldhub شليق النبي الله رحمه اللهم صل على سيدنا محمد بوك شو دو مر لوادي مسجد تحت عاصمة Dhuldhub Garowe بلان صوماليا تاريخ 18 نوفمبر 2025 أكون كفرس ميديا صوماليا لما وسمن سيبا قارها وحكنوا ليها عاصمة Dhuldhub Garowe بلان صوماليا راس عنا المربو بوغدا وقوي بري إلا هو بهالك كلا عيد عسين gobolkii Doolo halkaas oo dadon uga dheer ka galiya halkaas oo dadon jijjiga ka galiya dawladda deegaanka DDS Soomaaliya meel walba joogtaan nabadiino ilaahay nabadgeliyo horumar iyo barwaaqo bashbash ilaahay taariibka iyo dibkiisa inaga soo qabto ilaahay waxaan ka baryaynaa shaqooyin wanaagsan oo dhalinyaradeena iyo inoo dhan anfacda shaqo abuur baynu balana hadii dawladda hadii mas'uul tahay daawanayo waa dalkaaga nin xil qaaday idqa dhalinyarada shaqo loo sameeyo goob ay ma arta aqoon kororsi xirfado ka faa'iidaan mechanic waa number 1 furniture-ka engineering iyo dhismiyaadka qayb gasho wadooyinka si loo dhiso ajaanib bay naga dhigay marka inuu dhulka hoos u eegno indhaha aynu kor u taagin badana aynu u hanqal taagin dhulkaaga oo bariyo la dhigta bariyo meel meesha lacagta dhigto Soomaaliya hadda tahay meel walba Soomaaliya joogto cidna kama xigto hadaadan wax dhib wadin hadaadan amniga khalkhal gelinaynin hadii laga nabadgeliyo adiguna waa nabadgelaysa welcome to Faras Media oo niga soo la caasimadda Dhuldhub horumar wanaagsan Soomaaliya meel walba joogtaan subscribe-ka share-ka like-ta comment-iga wixii fikrada nagu la wadaag halka dhalalaysa waa caasimadda ma sha Allah soo dhawaada